waad baahantuuna waxa kan hagaajiya kan hagaajiya kan hagaaji noloshaadu waxay ku dhammaan doontaa inaad mustahlagaa noqoto customer ayuunbaad nin kale u tahay nin baana u fakera siduu customers u samaysan lahaa iyo kundayaal waa falsafo dhan oo rag meel u fadhiyaan ay u fakerayaan si kundayaal loo abuuri lahaa kundaal la abuurayana waa adigu shilinkan 16 saacadood aad la shaqaynayso ayuu nin kalena u fakeraya sidii adiga lagaaga soo saari lahaa oo markaasi loo odhan lahaa waxa iska dhici kar lahayd saacadan aad sii ordisay inaad adigu weelkaagaba iska maydhan lahayd laakiin waxa lagu yidhi maye adiguna soo shaqee mishiin baa kaa maydhaya mishiinka iibso gurigaaga saacadaad fiiqi lahayd waxa lagu leeyahay maye adigu soo shaqee laakiin mishiin baa kaa fiiqaya way isla meeshii waxba kuuma adiga badbaadin inaad hoover iibiso oo dryer iibiso cleaner iibiso kan iibiso kan iibiso saacaadka shaqee ku baxaya iyo inaad gacantaadaba guriga kaga qabataa ma kala badna laakiin ninba kuu fakaraya dadba kuu fakaraya si uu kaaga dhigi lahaa idan baahida waa la yarayn karaa laakiin iyadu ma joogsato walidalik ayaa saxiixu muslim xadiidka ku yaalla wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yacni axaadiis badan baa nebiga ka sugnaatay uu inoo tilmaamayo bini aadamkuba calooshiisa weel ka shar badan inaanu buuxin sida xadiiskii tirmidi waxa qofkana ku filaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxoogaa yaroo luqmado uu dhabarka ku toosiyo laakiin waxayna kaga filan hal xadiis oo qura inaan tilmaamo oo ah nin baa nebiga u soo hoyday calayhi salaatu wasalaam gaala dabeetana wuxuu yidhi ninkan hala marti sooro neef u soo lisa neef baa loo soo lisa uu ka laaca markaasuu nebigu yidhi neef kale u soo lisa waa loo soo lisa wuu cabbe mid kale u soo lisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kalea loo soo lisay kiina wuu cabbe u soo lisa buu nebigu yidhi kii kalena wuu cabbe sidii loogu waduu 7 cabbe 7 neef caanahood markuu cabbay buu seexday ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu u sheegay diin baa qalbigiisa gashay dabeetana wuu waa bariistay u soo lisa buu yidhi neef baa loo soo lisay wuu cabbay ku kale u soo lisa buu yidhi may buu yidhi ma kari karaya mid kale xabaddaasoo qura igu filan xalay 7 buu cabbay saakana mid buu cabbay maxaa u dhaxeeya ma waxaa odhan doontaan waa kala cir weynaa ninku waa ninkii calooshana waa tii waxbana isma bedelin wakhti lagu gaajoodana wuu jiifay dhowr iyo 10 saacadood waa jiifay wax isbedelay ma jiraan maxaa isbedelay nebigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi markaas isagoo tacliiqinaya ninkaasi xaadisada ku dhacday almu'minu yashrabu fii maciyin waaxid waalkaafiru yashrabu fii 7 amcaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'minkuna hal calooloo quri wax ku cabbaa gaalkuna 7 ku cabbaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa looga jeedaa ninkani waa ninkii calooshuna waa tiisii biologically waxba ismuu bedelin waa isagii waxa isbedelay waxa weeyaan wuxuu rumaysnaa waxa isbedelay wuu isqanciyey waxa isbedelay wuxuu fahmay qofka bini aadamka in kafaafku iskaga filan yahay waxa loo cunaa in la bararo inaan ahayn in la noolaado inay tahay maxaa wax loo cunaa just to be alive inaad nafta ilaalisay inaanay baktinin laakiin haddaad dhergiso soo ma ogid inay calooshu lahaynba limit ma leh caloosha waa elastic qofku marka aan wax badan haysanin jeex kimisa markuu iska cuno jeexaasaa ku filaada laakiin hadduu maalin walba jeexa uu ka yareyn waayo maalinta dambe jeexa nus buu ku yaro dari karaa maalin saddexaadda waxaa laga yaabaa inuu midh cuni karo hadduu iska sii wado maalin afraadda midh iyo badh buu cuni karaa bil dabadeed 2 buu cuni karaa bil dabadeed 3 buu cuni karaa ilaa iyo inta haraggiisa kan feedhuhu ay qabanayaan calooshu marka hore waa wax yaroo dee abdominalka dhex taalla feedhuhu markay qabtaan waxay bilowdaa inay xagga u soo baxdo expansionku yacni wuxuu bilaabmaa in diirkan sare uu kordho dabeetana uu xagga u soo baxo hadhowna aad keliyaha ka faaxday dabeetana aad sii ballaadhatay kullu dalik adaa sameeyey yacni naturally waad ahaan kari lahayd inaad iska dhuubnaato laakiin haddaad ku gurto kusii waddo naturally waad sii faxaysaa waayo limit baanay lahayn limitku waa elastic baynu nidhi weeyaan caloosha elasticuna haddaad wax ku gurto wuu dabcayaa haddaad adigu markaa dabaceeda u hayso waad sii soconaysaa waa jirtaa yacni naturally bini aadamku inuu baruurta kala qaban og yahay ama jidhkiisu inuu kala nugul yahay ama dheefshiidkiisu inuu kala fiican yahay oo iyagoo isku cunno la cuno midna inuu wixiiba musqusha ku rido midna uu naaxi karo taasi waa jiri kartaa waxyaabo badan oo kale laakiin
ma lihi markaa qof kastoo naaxayba sababtu wax weeyaan waxbuu ballaadhiyey laakiin waxa aan uga jeedaa inaan tilmaamo inaad ballaadhan karto adiguna inaad sababtay waxa kale inuu kugu dhaco waxaan leenahay waxa habboon qofka mu'minka ahi inuu الزهد في الدنيا وسمة أساسية بان ليه وحلا جاي بسمات كلو كم مهم سنين يجران عن صاقبي الإخلاص في العبادة أما عينك لكن وحن يدا والدور بدينا يدا قبل بلارية وحوجا وحن دريم يكون كلام لا معلومات دورين لها هي أما هل كان باهظ النوع كان يقاد وبضنت وهي وحن نحن أمد ماديين أمد ku xisaabtanta uun interest iyo maado iyo lacag maxaa la helaya iyo maxay isbedelaya classkan ku biiraya qofku wuxuu dagaalansanayba tabaqadan shaqaalaha hoose inuu ka baxo marka hore waa tabaqada shaqaalaha ugu hooseysa wax nadiifisa tabaqada xafiisku doonaya inuu tago tabaqada siyaasadda tabaqun buu raadinaya inuu kor u dalaco tabaqaad buu raadinaya iyadoo laga yaababa wuxuu aad ka heshay inay bariis isku mid ah wanahaayeen waxaan leenahay warbaahidu ma xadeysantee waxa xadeysma qofka doonistiisa xadeysanta qanaaca xadeysanta ghina nafsi ba xadeysma inuu qofku isagu isqancin karo dunida maanta la isku hayana mawduucan maan jeclayn inaan galo galiya warkeedna maan jeclay muddadan dambaba inaan galo laakiin waxyaaba ugu waaweyn maanta dunidu u fakarayso waxa ka mid ah hunguriga ma u malaynaysaa maraykanku wuxuu leeyahay waxay ku tilmaamaan maxay alamni alqawmi national security national security gooda kuwa marka la define gareynayo la sharxayo maxaa national security bergii hore national security ga inta badan waxa ay duwalku u fakari jireen inuu yahay maxay alamni al-askari in la helo xuduudda wadanka in la nabadgelin karo imika waa la ballaadhiyay falsafada alamni al-ghadaaya alamni kada alamni kada rafahiyada wadanka ila ilaaliyo inaanu dhaqaalihiisu hoos u dhicin kan u dhicin waxa kan ma u malaynaysaa American definitions ama qaabku u sharxa Maraykanku maanta ee waliba laga yaabo doctorateskooda ugu waaweyn inay sharxa leeyihiin bal ee kuwii la taliyaasha madaxweynahooda u ahaa inay leeyihiin yani book waa ku saabsiisan doonaysa waan ku tilmaamayo wada akhri definitionska ku yaala waxa ka mid ah مثلا أن تعبير يرخريه ميديا كمدا national security threats بشرحية وحيابها threat كقوة يعني محل إذا ذا قوة هالست قوة security كمريكا وحكمدا بيري development assistance and population planning are tools of statecraft as important as new weapons in dunida saddexaad si kale haddaanu tilmaamo weedhan iyo weedho badan oo kale ay leeyihin dunida saddexaad dhasheeda in la yareeyo bay yidhaahdeen oo ah development assistance-na inaynu bixinno population planning-na dunida aynu u samayno dadku intaynu doonayno aanu ka badanin waa tuulalka ugu waaweyn aynu u baahanay bay leeyihin sida aynu ugu baahannahay new weapon systems-ka saynu ugu baahanay nuclear iyo waxa kan waxyaabo aynu ugu baahida badan leh bay ka mid tahay buu tilmaamaya bal wuxuu sheegayaan xad ay gaadheen inay yiraahdaan ilmaha dunida saddexaad ku dhalanaya wuxuu threat ku yahay security-ga Mareykan ma u malaynaysaa adiga taas inay tahay rag waaweyn falsafada ay amisayno wadan dhan policy isku salaysay maxaa keenay waa dunidan dadka ku filayn sida ay sheegayaan iyagu hungurigii baa intuu batay baa nation dunida ka mid leeyay bahashuba inaga inaguma filan dadka kale aan yarayno dagaal lagu yareeya daawo lagu yareeya xanuun lagu yareeya dadku waxa laga yaabaa inay yiraahdaan dunida horumar ma jireen dadku ma cunaa la ishayaa threat baa uu arkayaaba inaad adigu ilmo dhasho waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso warniyow ilmahan yare meel heblay ku dhalay Mareykanka threatka ku haya waa maxay laakiin ما نجعلين المواضيع نسي قالوا لكن وحنا نقول إن تلمامه التنافس على الدنيا وحيابا هو وين ما أنت الدنيا دبتو بكايست وحلا يسكت ليو دبتو كتاجنتي دعوات الأنبياء وحي كانوا وحوينا يدتك كفر الله يسينا دونك كان ولذلك بقى واحد نرويجي مركي كور رميان مؤتمرات كي اللي سوي بمني هي قضية أوفر بفالكينج أيو الرأي كدي مني أظنه إنه شيوعيها وهي هذه يقول شيوعيين أقاب كانوا فكروا كابيتاليست كورتشيدا ده تنوحوا لها دنيا وحيا لوين وقف لينه فرسم حميدي إن بقى خرب يسوي لها